the best. Another one. Titi Ade. Always remember, it's lion order. Lion! Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aniga Maxamed Xasan YouTube ka daawanaysan waa another one Titi Ade meel walba dunida ka joogtaan. Isi walba maqalkayga iyo muuqaalkayga idin soo gaari doon niyad samiyi kal gacal ugu soo dhawaadadna kuma santiin daawashada fiidiyodan soo geliyo sida caadada iyo dhaqanka aydna ku soo dhawaada muuqaal cusub. runtii muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo gabar saxafiyad ah oo la yiraahdo Hoodo Grace ayaa labadii beri ee ugu dambeysay waxay cabasho ka ahayd ciidamada booliiska dowlad goboleedka Somaliland. runtii ciidamada booliiska ee maamul goboleedka Somaliland ayaa waxay jir dileen oo ay ayada iyo hooyadeedba ay si xun u garaaceen Hoodo oo ah gabar saxafiyad ah oo inta badan ay garanayaan dadka. runtii Hoodo waxaa ka muuqday dhaawacyo cadcad oo muujinaya in gabadhaasi aan waxba loo reeban. haddii Hoodo wejigeeda uu sida dhaawac ugu yaal, jirkeeda inta qarsoon ayaa kasii daran baa la leeyahay ama kasii dhibaato badan inta la arkay. runtii Hoodo waxay sheegtay inta badan in laga garaacayay kiliyaha ayna dhiig fadhiyaan kiliyaheeda. runtii wax laga xumaado in gabar Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed oo ku filan oo keliya inta la qabto meel la fariisiyo inta ee ragga ciidanka booliiska maamul goboleedka Somaliland ayagoo sameyn kara wax taa ka duwan in gabadha ilaa heerka ay jir dilaan. runtii Hoodo sababta loo dilay, Hoodo Grace sababta loo dilay ayaan rabaa inaan idin la wadaago. Hoodo ayaan dhaweyd ayaa waxaa loo dhiibay war ay rabtay in ay ka akhriso TV-ga ay u shaqeyso horyaal inuu yahay aan jeclahay. bal arka sababta horta Hoodo loo dilay. markii fiidiyoyadan ay soo baxeen ay ku soo baaheen baraha bulshada kadib, Hoodo waxaa lagu raadinayay falsafad lagu garaaci karo ama lagu baneysan karo dilkeeda, maadaama aan la xiri karin oo ayada ay tahay qof suxufiyad ah, aanan aadin magaalada Muqdisho, ay weli ku sugan tahay deegaanada ay ku nooleed Somaliland. marka sifo kale lagu jir dilo ayaa la baneystay. hadda ka hor waa ogeedeen waxaa sidan oo kale loo jir dilay Qamar Suugaani oo asigana sifaha lagu jir dilay xarash loo hayay ka mid ah inuu aaday magaalada Muqdisho. marka Hoodo wixii sababay in la jir dilo bal horta arkay. maxkamadda ciidamada walaalkaan wuxuu igu dhiibay waaba risk waxaan iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur al-shabaab ka hadlay ma naftayda ku socdaan dadka wala soo diray anigu laakiin maxaan bahaystaaba alla ilaahay shabaabay ma kamay naga xumaan naga madaxayso. macnaha maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay tiri maxaa ka leegu dhiibay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo al-shabaab iyo waxyaalaha ka hadla waa riski caday tiri dadkan nafteeda may u socdaan oo waaba la soo diray ayaan u maleynaa. laakiin waxay tiri aniga maxaan bahaystaa shabaab ay anagana ama shabaabi anigana wax xumaana haddaba anagama dhexeyso. runtii hadallada noocan ah markii la helay ayaa waxaa xaraka muujiyo laga yaabaa dowladda Somaliland oo inta badan aanan ogoleen dhanka iyo koonfur waxyaalo khuseeya in la sheego ama la aado. marka Hoodo taasaa sababtay in la jir dilo. Hoodo maalmahan oo dhan ayay ka cabanaysay, dhowr jeer ayay waxay soo gashay live, dhowr jeer ayay fiidiyoyi soo dhigtay baraha bulshada oo ay ku cabanayso weli inaan la helin xaqi iyo xuquuqdii ay lahaayeen ayada iyo hooyadeed. la jir dilay, sidii la rabo loo galay, haddana aan looga garaabin weli. waxay taagan tahay marka annaga booliiska uma dacwooneyno mar dambe u laabamayno maxaa yeelay waa dadkii sidaa noo dilay ani iyo hooyadeed. waxay dhahday Hoodo raggiina dilay annagana guryahoodii ayaan aadaynaa, haddii hooyaday xaqa ay weysay ay heli doonaan hooyooyinkaas aan beri annagana weerareyno waa la arki doonaa. marka horta waddanka maamulaa ka jiro, boliisuu leeyahay, madaxweynuu leeyahay, maamul kaluu leeyahay. waxyaalaha qaar waxaa wanaagsan in la xaliyo sida ku habboonna loo xaliyo.
hoodo in dhib ku dhacay waa wada aragnay booliiska taliyihii booliiska ee meeshaasi ayaa wuxuu caddeeyey in hoodo iyo hooyadeed ay gaari suugsuuki ay wateen ay xoog ku soo jiireen isbaarada hore ee saldhigga ayadoo weliba istaag la leeyahay weliba wuxuu leeyahay taliyaha nasiib wanaag markaasi askariga meesha taagnaa wax xabada ma uusan ridin taasna waa nasiib wanaag ayuu leeyahay sababtoo haddii xabad ay dhici lahayd laga yaabaa in meesha dhimasho ay ka timaad marka taa ma dhicin markii gaariga uu gudaha u gudbay askarigii markaa ilaalada ahaa ee markaa ku qornaa shaqada hooda ayuu ka daba yimid wuxuu yidhi gaariga sida sharciga qabo ku celi meeshiisa bakinka loogu talagalayna dhig hooda ayaa ka dhega adeegtayaa la yidhi askarigana quursatay kuna hor dhaqaaqday kadib ayuu shalmada soo qabtay war wuxuu yidhi gaariga gala ee kaxee markaasay dharbaaxsho kala daashay gabar kaloo meesha fadhiday oo ka tirsaneed booliiska somalilan ayaa iyadana meeshaa soo gashay kadibna gabadhii ayaa haddana la dirirtay oo dhaabac gaarsiisay taasaana kaliftaa la yidhi in meesha dagaalka uu kasii qarxo saas aynu ku dhacaan wixii meesha ka dhacay kadibna waxaa la dhigay hoodo iyo hooyadeed ee xabsiga kadib waxaa yimid nabadoonkii iyo caaqilkii ay ka dhashteen macnaha hoodo iyo hooyadeed kadibna waxaa laisku afgartay in hoodo iyo hooyadeed laga sii daayo saldhigga meeshana arrinka lagu soo gebagabeeyo waxaan hadda ka socda baraha bulshadana ay yihiin wax u gaar ah hoodo lagana ogolaan doonin lagana aqbali doonin cid kasto oo ku xadgudubta ama ka been abuurata ciidamada qaranka somalilan waxaana la tiigsan doonaa hoodo iyo hooyadeed xabsiga ama waxaan la tiigsan doonaa laanta maxkamadda ee arrintaa khuseyso maxkamadana saarayna hadda marka hooda mar kale soo jawaabtay welina waxay ka cabanaysaa inay cadaalad helin cadaaladna u baahan tahay marka waxaa loo baahan yahay horta hoodo dhib baa ka muuqda oo cad oo aan la dafiri karin maxaa yeelay garaafooyin waaweyn ayaa meeshaasi goomankaasi meelaha dhan ka muuqdo waxayna tiri weliba marka lay garaacayey taliyaha wuxuu ku hadaaqayey ama ku hadlayey ka dil meelaha qarsoon ha ka taawanin meelaha bannaan meelaha qarsoon baa dumarka laga dilaa marka inta badanna hadda waxay ku caddahay gudaha jirkeygin dhibaato gaartay riveetada aan wato oo dhakhtarka soo caddeeyey in dhib iga muuqdo warqadda ay ku taalaya tiroodo marka sidaa darteed dowladdu waa in ay ka garaabtaa xisbiga waddani oo ka mid ah xisbiyada ka dhisan maamulka somalilan ayaa guriga hooday iyo booqday cabashadoodiina ka raaligeliyey kana garaabay dhibka gaarayna ka damqaday marka hoodo weli waxay ku taagan tahay in cadaalad ay helin dhibka gaarayna looga garaabin ayna rabto in dhibka gaaray wax laga qabto hooyadeed oo sidoo kale ayadana madaxa iyo meelo badan ka cabanaysay sheegtani weliba ayado inay qaranka militarigaysa ay ka qayb tahay oo gaashaandhigga ay ka tirsan tahay dagaaladii SNM iyo waxyaalahaas badanna ay ka qayb gashay usoo dagaalantay dalka maantana aysan filayn in booliiska somalilan ay dhibaato kala kulmi doonto oo heerkaa la eg sidaa loo dili doono sidaa loo dhibaateyn doono ayna ka filanaynin waxay dhaheen xaqii aan lahayn xaqii xataa maxbuuska uu lahaa ma aanan helin inaan helno raashiin inaan jiif wanaagsan helno inaan caafimaad helno intaa xitaa ma aanan helin ayay tiri raashiinkii waana laga joojiyey oo waana loo diiday gogol waana loo diiday aan seexano marka dhibaato xoog leh ayaa naloo geystay oo weliba ka baxsan bini aadamnimada marka waxaa wanaagsan mar walbo in askariga la ixtiraamo asigana uu ixtiraamo shacabkiisa hooyo iyo gabar soomaaliyeed dhibaatada heerkaa la eg waa laga gaabsan kari waxaa ku filneed in gacan iyo lug la qabto qolka la geliyo iridda lagu xiro intaa ayaa warkooda soo gebagabeynaa laakiin dhibaatada maanta way muuqataa
marka dowladda somalilan ee madaxweynaha uu ka yahay muuse biixi gabadha iyo hooyadeeda wixii sharciga uu siinayo inuu u ogolaado cadaaladna ay helaan ayaan ugu baaqi lahaa tan iyo kulantideena dambana hooda waxaan leeyahay caafimaad allah ku siiyo tan iyo kulantideena dambana